wadooda xukunada ciqaabta iyo sii deynta eedeysanayaasha xorriyadooda loo soo celiyay kadib markii wax dembi ah lagu waayay maxkamadda hortooda kuwa kale ee la xukumayna ay maxkamadda horteeda kaga caddaatay in ay galeen falalkaasi lagu xukumay. fadhigan oo uu gudoominayay gudoomiyaha maxkamadda sare garsoore yuusuf ismaaciil cali iyo 4 garsoore oo ka mid ah garsoorayaasha ka howlgala maxkamadda sare ee Soomaaliland waxay xukunno dil ah ku riday kow Faysal Daahir Cashuur ina Siraad Gaafoon oo 35 jir ah oo hore u dilay marxuum Cali Cabdillaahi Xirsi kuna dilay magaalada Hargeysa 11kii bishii shanaad ee sanadkii 2011. laba Kayse Xasan Magan ina Xaawa Maxamed oo 23 jir ah oo hore u dilay marxuum Jaamac Axdar Maxamed ina Baada aw Xasan 17kii bishii afraad ee sanadkii 2011. saddex Siciid Ibraahim Axmed ina Faaduma Cali oo 38 jir ah oo hore u dilay marxuum Xasan Axmed Caydiid. waxa kale oo maxkamaddu ay xukun dil ku riday Maxamed Xasan Nuur ina Tireeg Xasan. دنبيله سعيد إبراهيم أحمد إنا فاطمة حرسي سيدي سدون ترى وحال لو حكم عقاب دكتور بشاه oo loo qisaasi doono marxuumka uu dilay ee magaciisu yahay Xasan Axmed Caydiid waxa loo cuskuday xukunkan qodobka 430 xeerka ciqaabta guud iyo 123 xeerka habka ciqaabta iyo ahkaamta shariicada islaamka kitaabka quraanka kariimka suuratul baqara aayadaha 178 179 iyo suuratul maa'ida aayada 54aad 179 waxa soo saartay xukunkan maxkamadda sare ee Soomaaliland magaca Soomaaliland waxa la diiday asbaabta rafcaanka Xasan Magan ina Xaawa Maxamed waxa loo galay sharciyada rafcaan sare xafiiska xeelaanta guud waxa la diiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Hargeysa lambarkiisu yahay maxkamadda rafcaanka gobolka Hargeysa dacwad dambi rafcaan number 95 2011 ee soo baxay 25 bishii 2012 waxa lagu xukumay dambiile Kayse Xasan Magan ina Xaawa Maxamed 23 jir ah dib toogasho kadib markuu si buuxda ugu